قبل قوري لها فوسي قوريلي رجبوتي وادو قفتي قف رجبوتي شاقية من نقضو ناني رجبوتي من صعاين أنا قال له يفكي ويا لا وحبك مشيق يو هذا محكا شيء المها واتقانا قفك دالي سفي عن بعض تقانا محاي بري نيكا قاعدة لي محاي بري إيشك يا ممركو قفولة يمن أيام كو قدوا يمياه قلقلوعو إنو تيفيغو كو كيانو إمي سعشو أيو قريجيسو كوغو هايستي بل إيشك أنا أقوليو كشي حاي كلمة داس أوه إلهي إمي سعشو قريجو كوغو هايستي أديقو أويناي يا طريقة كاسو قادو تيفيغو يوكا كياني استي وجه أسبرو وصاني مويكا يا شرموتوي وجه أسبرو وحكو سميا مويكا نايا waxay tiri baa waxay tiri aan horta waxaan maqlay shalay baan maqlay fiidowga sida hore maan arkin wallahi shalay marka arkayna hawl baan ku jiray maan ka soo bixi karin xilligan soo baxana xilli la hadlo ma ahayn waan daalan yahay waan iska seexdan hunno maanta marka shaqada ka imid part time baan ahaa ayaan doonayay inaan u jawaabo anigoo runtii fuusiyad diidayay inaan u jawaabo haddana waan ku khasban yahay because فوزي ولا يوصل شرقالة أنيقا إنا فوزي سيري كويس تاجا للربي أو أنيقا علين تسوى عبو كيف كان أنتوا سعودوا والله هنا قفنا سوي حاجنين تابسن معي قفنا أوكي تايلمها ومرية تايلمها واتقانا قفك دالي سفي عن بعض التقانا المها هو إن أنت إذا وين وناق عيسى أوفر لبا ريد جبوتي بانا كاجي جواب تاس صاحب نين كبتنا دالي وانيكي أنيقا إسيدي مركان دلك إيماناي oo inantaydeer uurkeeda aan lahaa kabtan ciidamada maarinka dhalay saaxiib xuseen muuse xareed ciyaar maaha haddii aan dhageysin la telefoonka meegaga jiraan xanaaqay codadku soo duubay uu ka yaabay waxay ku hadlaysaa naagtaas kow inamadaydan inankaygana aabihiis waaba taqaanaa midkii darbiga kaa soo qaadi jiray buu ahaa fuuziye gorilla abaayo maxaa tiri qalanjo bay yiraaheen دادي غوريلا هادي ولا شاك هو بحسي أنا كنا قلنشة يبحسي ما أنا قاعد دمبيلا أضيبه ولا شاء هيدا ولا شاء ما هو برودكتا يا فهذا معان بلا صاحب بانون هاي نيلي 20 years بان صاحبنا إيه ذا ما قاعد يبحسي مياك حنتها waxay tiri timahay afar gani ay ku sameyn jirtay hello naya qof cashuur iska bixiya oo meel kireystay oo hair dress ah sideebu ku bixinaya afar gani oo maxaa raday qof ugu sameynaya timaha hair baan ka gaaray waan sameyn jiray maalintan inankayga yar damba dhalay ayaan iska daayay because babygayga dartiis ayaan u daayay shaqadaasna markaas ay hawada raacday okay naagdan oo dadka iyo fanaaniinta iyo cid walba u timaado oo qabiil kasta iyo xitaa ajaaniba ay iman jiray timaha iga samaysan jireen ma fahanti tidacoo kaliya ayaa 25 gini ahaa markaas taasna waa taasan ka irihuno shaqa ma la isku caayo laakiin timaha gablaha sameeyo ajaaniba sameeyo college loo dhigtaa walaashayay waxba loo soo bartaa meel baa looga soo baxaa adiga waa nooshahay Fawzi Gorile waa nooshahay walaashay mana noolid adiga oo inta leeg da ahaan niili marka la isku qiyaaso aniga adiga waa isda leegnahay wadanka waxaan kala ka saynin ma waxa timid 97kii mise waxa timiday 93kii labadaas aan kala garanaynin wad iiga soo horeysay wadanka intee maskaxdaada ku maqnayd qayrka markay baasaboor samaysanayeen oo sharcigooda ay abaalgareysanayeen xageed ku maqnayd adigu ilaa hadda ma haysatid xitaa indefinite ka ugu yar oo Britishka ahaan xitaa ma haysatid Britishna goorma lagu ogolaaday goorma laakiin caawa naagta inta wax akhriso samaysan lahayd ee ku duulimaad tagi lahayd ee durida afarta daclo u duuli lahayd aaway inta no lagu jiray ayuu gobol ku dhacay waxa kale oo su'aal ku weydiiyay horta ciyaalkaaga ku dheeraan maayo waayo ubad baan leeyahay adigu waxa tiri ubadkaaga wax ka sheegi maayo haddana ubadkaygiiba been riba ka sheegto aabayaashood kula joogaan wadanka adiga ana qaybta hooynimadan kala hadlaa laakiin ciyaalka inaan taabto ha ka yaabin Fawziyay aaway xuquuqdii ilmuhu ay hooyada ku lahaayeen
bal ma ii sheegi kartaa xuquuqdii hooyada ilmuhu ku lahaayeen aawe xaggee aade ilmahaagii aawe abaayo macaan adoo naag nool ah ilan af noolow hadlabaadha ayna wiciyaa sidee ay naag qayrkaa ah ay dowladda ugu dhiibto lagugu hayaa bal ii sheeg miyaa dhiman tahay mise hinii bajuuja aa ku dhaafise ii sheeg macaanta tv-ga horta waxaan ka hadalay hadda ka hor 3 taasina taasaan kaa iri ilmaha ma taabsanaayo ani ilmo ma taabsanaayo qabiil ma taabsanaayo waalidna ma taabsanaayo intaba madnuuc bay yihiin waxaan kaloo kuu sheegaya walaashay Fawziya wax badan baa kuu nasteexiyey walaal been baad iga sheegtay booyisaan ahayn baad gabadha gooriilaha Fawziya goriile reer Djibouti baad u gaftay gof reer Djibouti shaaqiyad ma noqdo naani reer Djibouti ma soo caayin aniga lifekayga wuu yaala waxba kama sheegin adan wax ka sheegay ilmaha waa taqaanaa qofka dhalay si fiican baad u taqaanaa maxay baray ninka ka dhalay maxay baray ii sheeg ya markuu gufuulayeban ayaan kugu duwayay miya qalqaloocow inuu tv-ga ku keeno imise casho ayuu gurigiisa kugu haystay bal ii sheeg anuu weliba ka sheexayo kelmadaas oo ilaahay imise casho guriga kugu haystay adigoo oynaaya yaa dariiqa kaa soo qaado tv-ga uu ka keenay waji asbaro wasaani ma way keenaya sharmuutoy waji asbaro wax ku sameeyo ma way keenaya waxay tiri aan horta waxaan maqlay shalay baan maqlay fiidowga sida hore maan arkin wallahi shalay markaan arkayna hawl baan ku jiray maan ka soo bixi karin xilligan soo baxana xilli la hadlo ma ahayn waan daalan yahay waan iska seexdahuuna maanta markaan shaqada ka imiday baaftaan baan ahaa ayaan doonaya inaan u jawaabo anigoo runtii Fawziya diidaya inaan u jawaabo haddana waan ku khasban yahay because Fawziya waa lagu soo shirqoolay aniga inaan Fawziya si ku istaagaa la rabay oo aniga alinta soo cabo kiiskan intuu socdo wallahi inaan qofna saa xaganeyn taabsan maayo qofna okay ta ilmaha umarayay ta ilmaha waa taqaanaa qofka dhalay si fiican baad u taqaanaa ilmahayga waa inantayda weyn waa naag Ciisa oo furlaba reer Djibouti baana kaaga jawaabay jawaabtaas saaxiib nin kabtanaa dhalay waa ninkii aniga iside markaan dalka imaanayay oo inantayda uurkeeda aan lahaa kabtan ciidamada maarinka dhalay saaxiib Xuseen Muuse Xareed ciyaar maaha haddii aan dhageysin la telefoonka meegiga jiraan xanaaqay codadku soo duubay uu ka yaabay waxay ku hadlaysaa naagtaas kow inamadaydan inankaygana aabihiis waaba taqaanaa midkii darbiga ka soo qaadi jiray buu ahaa Fawziya goriile abaayo maxaa i tiri qalanjo bay yiraaheen daadi goriile haday walaashaa ku bixisay anigana qalanjo i bixisay ma aniga dambiilaha adayba walaashaa ahayd walaashaa ma habroodagtaya faado macaan baa la saaxiib baanu nahay niina 20 years baan saaxiibnahay iyada magaca ii bixisay miyaa ka xun tahay waxay tiri timahay afar gani ay ku sameyn jirtay hello naya qof cashuur iska bixiya oo meel kireystay oo hair dress ah sideebuu ku bixinaya afar gani uu maxaa raday qof ugu sameynaya timaha hair baan ka gaaray waan sameyn jiray maalintan inankayga yar damba dhalay ayaan iska daayay because babygayga dartiisa ayaan u daayay shaqadaasna markaas ay hawada raacday okay naag dhan oo dadka iyo fanaaniinta iyo cid walba u timaado oo qabiil kasta iyo xitaa ajaaniba ay iman jiray timaha ay samaysan jireen ma fahanti tidacoo kaliya ayaa 25 gini ahaa markaas taasna waa taasan ka irihuuno shaqa ma la isku caayo laakiin timaha gablaha sameeyo ajaaniba sameeyo college loo dhigtaa walaashayay waxba loo soo bartaa meel baa looga soo baxaa adiga waa nooshahay Fawziya goriile waa nooshahay walaashay mana noolid adiga oo inta leeg da ahaan niili marka la isku qiyaaso aniga adiga waa isda leegnahay wadanka waxaana kala ka saynin ma waxa timiday 97kii mise waxa timiday 93kii labadaasana kala garanaynin wad iiga soo horeysay wadanka intee maskaxdaada ku maqnayd qayrka markay baasaboor samaysanayeen
oo sharcigooda ay abaalgaraysanayeen xaggeed ku maqnayd adigu ilaa hadda ma haysatid xitaa iddifinid ka ugu yar oo britishka ahayn xitaa ma haysatid britishna goormaa lagu ogolaaday goorma laakiin caawa naagta intay wax akhriso samaysan lahayd ee ku duulimaad tegi lahayd ee dunida afarta daclo u duuli lahayd aaway inta lagu jiray ayuu gobolku dhacay waxaa kaloo su-aalka weydiiyo horta ciyaalkaaga ku dheeraan maayo waayo ubad baan leehay adigu waxaad tiri ubadkaaga wax ka sheegi maayo haddana ubadkaygiiba been ribaa ka sheegto aabayaashood kula joogaan waddanka adiga ana qaybta hooynimadan kaala hadlaa laakiin ciyaalka inaan taabto ha ka yaabin fuusiyaay aaway xuquuqdii ilmuhu ay hooyada ku lahaayeen bal ma ii sheegi kartaa xuquuqdii hooyada ilmuhu ku lahaayeen aaway xaggee aadi ilmahaagii aaway abbaayo macaan adoo naag nool ah ilaan af nool u hadlabaa ayna weeciyaa sidee ay naag qayrkaa ah ay dowladda ugu dhiibto lagugu hayaa bal ii sheeg miyaa dhiman tahay mise hinii bajuuja aa ku dhaafise ii sheeg macaanta tv-ga horta waxaan ka hadalay hadda ka hor saddex taasina taasaan kaa iri ilmaha ma taabsanaayo ani ilmo ma taabsanaayo qabiil ma taabsanaayo waalidna ma taabsanaayo intaba madnuuc bayga yihiin waxaan kaloon kuu sheegaya walaashay fuusiyay wax badan baa kuu nasteexeeyey walaal been baad iga sheegtay booyisaan ahayn baad